waa galab jimcaha bisha juun waa 8 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrban iyo bogga VOA Somali.com. idaacadda galabnimo waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Jaamac Buulle Jaamac. qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mida barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan ku falanqayn doonno kulan madaxeedka 12 bishan singabuur ku dhex maraya madaxweynaha maraykanka iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi. qolyahan nodolka kuuriya ay garaysteen in madaxweynayaasha hore ka duwan yahay dantooduna ay ku jirto maadaama dhaqaal ahaan hadda aad u baabaasan yihiin hubka nukleerkaana yani hanjabaadii iyo caalamka ay ku hayeen yani runtii lasoo taabtay dadkeedii oo ogaadeen inaysan nukleer maanta aysan waxba ku qaadaynin. sababta keenta inay kulmaan waa ay wejiyo badan tahay dhinac walibana dan gaar ayaa ugu jirta kulankan. markii aan ka fiirno dhinaca maraykanka waxaa ka yaraanaya hanjabaada dhinaca nukleerka oo mar waliba ay ugu hanjabto waqooyiga kuuriya. sidaa oo kale waxaad maqli doontaan qaramada midoobay oo inay colaadda joojiyaan ciidamadana kala qaadaan ugu baaqday Somaliland iyo Puntland iyo digniino kaleba. waxaa kaloo dhegaysan doontaan Soomaali Canadian ku soo baxay doorashada gobolka Ontario ee dalka Canada. barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. wax yar ka hor inta uusan furmin shirka wadamada G7 ee dhinaca dhaqaalaha ku horumaray ayaa madaxweynaha Maraykanka Donald Trump waxa uu hadal kulul ku tuuray ra'iisul wasaaraha shirkan martigelinaya ee Canada Justin Trudeau. sidoo kalena aqalka cad ayaa ku dhawaaqay in madaxweynuhu uu ka baaqsan doono kulamada qaar. laba fariimood oo uu bartiisa Twitter-ka xalay soo dhiga ayuu ku cambaareeyay ra'iisul wasaaraha Canada iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo uu sheegay inay canshuur dheeri ah ka qaadaan waxyaabaha Maraykanku uu dhoofiyo. Trump ayaa sidoo kale sheegay inuu ka careysan yahay xiriirka ganacsi ee dhinaca xadka. mar kale ayuu madaxweyne Trump isla xalay bartiisa Twitter-ka ugu digay midowga Yurub iyo Canada inay canshuurtooda iyo xanibaadooda ganacsiga ka qaadaan Maraykanka ama uu qaadi doono tallaabo jawaab celin oo ah taasi uu ula jeeday inuu canshuurta sii kordhin doono. ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa saadaalisay in wadahadalada G7 ee Jimcaha iyo Sabtida ay noqon doonaan kuwo aad u kulul, taasi oo sabab ay uga dhigtay halka Maraykanku uu ka taagan yahay ganacsiga dunida. wadamada Suudaan iyo Suudaanta Koonfureed ayaa ku heshiiyey dib u dhiska kaabayaasha shidaalka ee uu dagaalku burburiyey si ay 3 bilood gudaheed u bilaabaan wax soo saarka shidaalka Suudaanta Koonfureed. wasiirka warfaafinta ee Suudaanta Koonfureed Michael Makuei ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in Suudaan ay qiimeynayso kaabayaasha shidaalka ee burburay ee waqooyiga Suudaanta Koonfureed si dhismaha loo bilaabo. sida uu Michael Makuei u sheegay Reuters, labada wasiir ee kheyraadka ee labada dal ayaa ka wada hadlay waxa ayna isla meel dhigeen in ay wada shaqeeyaan si loo dhiso kaabayaasha dhaqaalaha shidaalka ee dagaalka uu burburiyey. dowladda koonfurta Suudaan ayaa gebi ahaanba ku taagan dhaqaalaha laga soo saaro shidaalka, balse waddankan oo ah midka ugu da'da yar Afrika ayaan wax saliid ah soo saarin tan iyo markii uu dagaalka sokeeye ka dhex qarxay sanadkii 2013. hay-adda dusha kala socota arrimaha Syria waxay sheegtay in duqeyne ay ka dhacday deegaanka ay gacanta ku hayaan mucaaradka ayna ku dhinteen 35 qof, halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen taasoo ay ku jiraan caruur. hay-addan oo fadhigeedu yahay dalka Britain oo arrimaha xuquuqda aadanaha ilaaleysa waxay sheegtay in weerarkaasi dhanka cirka ah lala eegtay xaafadda Sardana ee waqooyiga galbeed ee gobolka Idlib. wariyayaal ku sugan goobta oo ka tirsan telefishinka AFP ee Faransiiska waxay sheegeen in tiro dad ah ay ku dhaawacmeen kuwaasoo la geeyay cisbitaalada, waxaana ay sheegeen in dadka cisbitaalada la geeyay ay ku jiraan dumar, caruur, waayeel iyo tabarucayaal ka shaqaynaya dhanka gurmadka degdega ah. bilihii dhowaa ayaana duqeymaha Idlib aana loo baran. 10,000 oo reer Syria ayaa ka barakacay qaybaha kala duwan ee dalkaasi ay dagaaladu ka socdeen. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa 6 nin waxa ay ku soo rogeen cunaqabateyn caalami ah kadib markii lala xiriiriyey ganacsiga tahriibka dadka iyo ku tagrafalid xuquuqda dadka ay ka dhoofiyaan xeebaha Liibiya.
6 nin oo kala ah 4 liibiyaan ah iyo 2 u dhashay dalka Eritrea ayaa hormuud u ah burcad ka ganacsata dadka laga soo daabulo waddamada saxaraha Afrika ka hooseeya oo dad badan oo doonaya inay ka tilaabaan badda Mediterranean-ka iyaga oo rajeynaya gelitaanka Yurub ay ka soo hayaamaan. waa markii ugu horreysay ee goluhu ammaanka uu cunaqabatayn ku soo rogo kooxaha burcadka ah ee ka ganacsada dhoofinta dadka. cunaqabatayntan oo dhaqan gashay isla shalay ayaa 60 qof ku xanibaysa inay u safraan kana baxaan waddamadooda iyada oo hantidoodana bangiyada ay dhigteen la xanibayo. halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington. qaramada midoobe waxay sheegtay in midnimo iyo nabad waarta oo lagaga gaaro colaadda iyo deganaanshiyaha ay muhiim u yihiin Soomaaliya oo wajahaysa caqabado ka hortaagan helista dowlad federaali ah oo si wanaagsan u shaqaysa. waxaa kaloo qaramada midoobe ay ku boorisay Somaliland iyo Puntland inay joojiyaan colaadda gobolka Sool, ciidamadana ay kala qaadaan oo ay wada hadal isugu yimaadaan iyo in dhammaan dhinacyadu ay ogolaadaan galaangalka gargaarka bani'aadanimo. warbixin ku saabsan war qoraal ka soo baxay madaxa golaha ammaanka ee qaramada midoobey shalay iyo booqasho ay Muqdisho ku tagtay kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobey ee dhinaca siyaasadda waxaa inoo haya Maxamed Colaad Xasan. shir 15 xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobey ay shalay ku yeesheen Soomaaliya ayaa laga soo saaray war qoraal oo looga hadlayay guulaha ay gaartay dowladda federaalka Soomaaliya, caqabadaha ka haysta ammaanka, siyaasadda iyo dagaalka ka dhex oogan Somaliland iyo Puntland. qoraalka ayaa lagu sheegay in golaha ammaanka uu soo dhoweynayo isbedelada dhinaca amniga, dhaqaalaha iyo siyaasadda ee Soomaaliya laga sameeyey oo ay ku jirtay doorashadii sida nabdoon ku dhacday ee lagu doortay gudoomiyaha cusub ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. qaramada midoobey waxay sheegtay in midnimada iyo nabad waarta oo laga gaaro colaadda iyo deganaanshaha ay muhiim u yihiin Soomaaliya oo wajahaysa caqabado ka hortaagan helista dowlad federaaliya oo si wanaagsan u shaqaysa. dhinaca kale, golaha ammaanka ayaa ka hadlay dagaaladii dhowaan gobolka waqooyi ee Sool ku dhex maray ciidamada Somaliland iyo Puntland, iyagoo ku booriyey labada dhinac inay colaadda joojiyaan, ciidamada ay kala qaadaan, muranka ka dhexeeyana ay wada hadal nabadeed ku xalliyaan. qoraalkan oo uu ku saxiixnaa madaxa golaha ammaanka ee bishan Juun Dimitri Boloniski, wakiilka Ruushka ee golaha ammaanka ee qaramada midoobey, ayaa lagu yidhi 15 xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobey waxay ugu baaqayaan dhammaan dhinacyada inay u oggolaadaan si buuxda badqabta oo degdeg ah iyadoo aan la hor istaagin gargaarka in la gaarsiiyo dadka u baahan. golaha ammaanka waxa uu ka digay cadaadis uga imanaya gudaha iyo dibadda midnimada dalka Soomaaliya. dhinaca kale, golaha ammaanka ayaa walaac ka muujiyey halista uu ururka Al-shabaab weli ku hayo ammaanka Soomaaliya, iyagoo dib u xaqiijiyey taageerada ay la barbartaagan yihiin dadaalka loogu jiro sugidda amniga Soomaaliya iyo dowladda federaalka Soomaaliya. guluhu wuxuu cambaareeyey askaraynta carruurta, afduubka iyo gacanka hadalka jinsiga ku salaysan ee lagu kaco Soomaaliya. sida ku cad qoraalkan, waxaa kaloo uu golaha ammaanka ee qaramada midoobey soo dhoweeyey horumarka ilaa iyo hadda laga sameeyey qorshaha shuruudaysan ee amni ku wareejinta dowladda Soomaaliya marka ay dalka ka baxaan ciidamada AMISOM. goluhu wuxuu carabka ku adkeeyey ahmiyadda ay leedahay dedejinta iyo fulinta qorshaha qaran ee amniga Soomaaliya ee ay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ku heshiiyeen. goluhu wuxuu dhinaca kale soo dhoweeyey sii wadista wadahadallada heerkoodu sarreeyo ee dhex mara dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada si horumar looga sameeyo dhinacyada qaybsiga awoodda iyo khayraadka, dib u eegista dastuurka, helista dhaqaale iyo canshuur midaysan, iyo u diyaargaroobidda doorashada qof iyo codkiisa ah ee dalka lagu wado inay ka qabsoonto sannadka 2020-2021 iyo dhammaystirka hay-adaha cadaaladda dalka. qoraalkan ayaa ku soo beegmay iyadoo shalay ay Muqdisho tagtay kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobey ee dhinaca siyaasadda Rosemary DiCarlo. markii ay tagtay Muqdisho oo ay kulan la yeelatay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, ayay DiCarlo hadalkan kooban ka jeedisay filla Soomaaliya. I wanted to come to show how important Somalia is to the United Nations. It's a high priority for the Secretary General and for me.
waxaan rabay oo u imid inaan muujiyo sida Soomaaliya ay muhiim ugu tahay qaramada midoobay iyo sida xogayaha guud iyo anigaba ay noogu jirto mudnaanta ugu sarreysa. waxaanu wada hadalnay madaxweynaha oo aanu ka wada hadalnay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee siyaasadeed sida shirkii qaran ee dastuurka iyo shirkii golaha amniga qaranka. waxaan madaxweynaha uga mahad celiyey guulaha ay dowladdu gaartay oo ah kuwa muuqda. Soomaaliya waxay samaysay horumar weyn 10 sano ee lasoo dhaafay. booqashadan oo ahayd teedii ugu horreysay tan iyo markii loo magacaabay xilkan sare bil ka hor ayaa qayb ka ahayd safar ay ku marayso 3 waddan oo Afrika ku yaala oo ay ku jiraan Kenya iyo Nigeria. Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. barnaamijka cusub ee galka baadhista ka dhagaysa idaacadda VOA bishiiba 2 jeer. galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka kaa qarsoon ama aad ka boganin. galka baadhista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhagaystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraada uga helaan. haddaba ha moogaanin barnaamijka galka baarista oo bishiiba 2 jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA. haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baadhista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee voasomali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. gobolka Ontario ee dalka Canada oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan dalkaas waxaa xalay lagu dhawaaqay natiijadii doorashada ee ka dhacday shalay. xisbiga muxaafadka ee hogaamiye Doug Ford ayaa helay kuraasta ugu badan ee doorashada ee aqlabiyadda dowladda gobolkaasi, iyagoo soo afjaray muddo 15 sannadood ah oo gobolka ay awoodiisu gacanta ku haysay xisbiga furfuran ee liberaalka. doorashadan ayaa dhinaca Soomaalida waxaa ku soo baxay xildhibaankii ugu horreeyey ee laga doorto gobolkaasi, waxaana ku guulaystay Faysal Xasan oo isagu ka tartamay galbeedka magaaladaasi. sawaxankaasi wuxuu yimid kadib markii la shaaciyey guusha Faysal Xasan oo ka tirsan xisbiga NDP oo noqday xildhibaankii ugu horreeyey oo Soomaali ah oo ku guulaystay xildhibaannimada gobolka Ontario. Faysal oo ka sharaxnaa xaafadda York South Weston oo Soomaali badan ay degan tahay ayaa helay 13,456 cod, wuxuuna ka guulaystay 2 murashax oo ka kala socotay xisbiyada Conservative-ka iyo Liberal-ka. haddaba Faysal ayaan weydiiyey waxay uga dhigan tahay guusha uu gaaray. guusha aan gaarnayna waa mid ma garanaysaay bilow ah. dabcan waxaa iskale guushaas dadka xaafadan degan oo soo baxay oo na siiyey codkooda iyo kalsoonidooda. waxaanu doonaynaa kalsoonidooda iyo maaragtay aaminaadda inuu aaminaan u adeegno inaan labalaabno awoodayada iyo shaqadayada si aanu dadkaas dhibaatooyinka faraha badan ee aan ka hadlay markii dhoweyd inaan u adeegno. marka caawa anigu waxay ii tahay farxad in dadka xaafadda York South Weston degani ay siiyaan kalsoonid buuxda oo aan noqdo xildhibaankooda gobolka Ontario ee xaafadda York South Weston. Soomaali badan oo ku sugnaa hoolka lagu sugayay natiijada ayaa aad ugu farxay guusha Faysal. guushan waa guul aad iyo aad u weyn. maanta muxuu ahaa Faysal Xasan oo noo soo baxay gobolka Ontario noo fariisan doona xildhibaan MPP ah oo maalin farxad leh, waa maalin ku weyn ummadda Soomaaliyeed ee degan gobolka Ontario gaar ahaan magaalada Toronto. waxaan leenahay Soomaalida hadday isku duubnaato oo midowdo systemka waan ka qayb gali karnaa. miiska wax lagu qaybsanayo oo go'aamada lagu gaarayo oo annagana impact garaynayo dad noo fariistaan heli karnaa. markaa lala socdo haddii laisku duubnaado oo la wada shaqeeyo dad baan soo saari karnaa. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maaragtay soo baxa uu maaragtay Faysal Xasan soo baxay. dadkii la shaqeeyey wuxuu dhan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. farxad bay noo tahay. axmed baa noogu jiray Soomaalinimo aynu u shaqayno. waxaan aad iyo aad caawa ay nagaga duwan tahay Faysal oo in badan soo halgamay inuu caawa ku guulaystay. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. dhanka kale waxaa xusid mudan in Maxamuud Aamin oo ka sharaxnaa xaafadda Etobicoke North kana tirsan isla xisbiga NDP uu galay kaalinta 2 isagoo ka sara maray Shafiiq Qaadiri oo ku dhawaad 10 sano xildhibaan ka ahaa xaafadaasi. xisbiga Progressive Conservative ayaa ku guulaystay aqlabiyadda kuraasta baarlamanka halka Doug Ford oo ah madaxa xisbigaasi ee gobolkan uu noqday
hogaamiyaha cusub ee gobolkan ontario. xisbiga liberaalka oo ku dhowaad 15 sano ka arriminayay gobolkan ayaa lumiyey 50 kursi iyagoo helay 10 kursi oo keliya. xisbiga NDP oo uu Faysal ka tirsan yahay ayaa noqonaya mucaaradka rasmiga ee gobolkan. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto. aroor walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirban warar sugan iyo warbixinno xiise le ka dhegaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. doodda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhegaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo. wararkiiyo warbixinnada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysa v o a maalin walba 4 galabnimo. haweyska washington, wicitaanka dhegaystaha, faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban. dhegaystaha idaacadaha tooska hay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 425-585-1503 ama booqda boggeenna internetka ee voasomali.com. magaalada baris ee dalka faransiiska waxaa lagu soo gebagabeeyey shirweynihii dhaqanka ee hay-adda unesco ee qaramada midoobey ay soo qaban qaabisay. wasiirka diinta iyo dhaqanka dalka jabuuti muumin xasan barre oo shirkaasi ka qayb galay ayaa wariyaha v o eda ee london ridwaan xaaji cabduule uga waramay shirkaasi iyo waxyaabaha looga hadlay. aad baad walaal mahadsan tahay. runaantii shirku wuxuu ahaa shir loo qabanayay guddiweynihii unesco oo laga wada tashanaya howlo badan, haddana islamarkaana oo ay ku saabsan tahay ay kamid tahay hanti dhaqameedka madguraanka ee la taabsadka sida loo yaqaano dadweynaha af soomaaliya haddii aan ku turjuno. wax badan ayaa runaantii laga wada hadlay, dawlado badanna way kasoo qayb galeen. islamarkaana waxaa loo fadhiyay sidii guddiga golaha maamulka unesco loosoo cusbanaysiin lahaa. dawlada way ka baxeen, dawladana way soo galeen. jabuutina waxay candidate u ahayd inay soo gasho oo xagga afrikada kasoo gasho, wayna noo suurta gashay inaan soo kala walaal. waa gartay, marka waxaad ka mid tihiin dawladaha mar kale guddiga ka mid noqday oo doorashada ku guulaystay. walaal kuwa baan ka mid yahay. waayahay, waxyaabaha ugu waaweyn ee aad kala hadlayseen haddii aad tihiin dalka jabuuti hay-adda unesco maxaa ka mid ah? runaantii walaal waxaan naga qabsoomay kulana kala duwan oon la galay mas-uuliyiinta unesco ay ku wareegso gabadha maamulaha guud u ah unesco. runaanti horta waa tashi guud baan ka tashanaynay sidii mataqaanaa oo maadaama qayb ka noqonay golaha maamulka unesco intaan annagu wixii aan ka tari lahayn unesco annagu ambase africa ahaan iyo reer jabuuti ahaan iyo dal harbeed ahaanba aan wax un kasoo ka geysan lahayn. qaybta kale wixii inaan la qaban kari lahaa ambase wadaarsi kala noqon lahayd. runaantii dhowr mashruuc iyaan wadanay annagu meesha la nimidnay. dhowrka mashruuc waxaa ugu waaweynaa runaantii museum weyn oo jabuuti ka wadna hadda oo alxamdulilah runaantii dhulkiisii iyo dhismihiiba aan iska haysano. waxay bal unesco nagala qaban lahayd baan ka wada hadalnay. gaar ahaana waxaan aada iyo aada runaantii annagu aan culeyska u saaraynay xaggan mataqaanaa technical support inayna siiyaan oo xaggan mataqaanaa wixii farsamaha inay naga caawiyaan. waa gartay, marka mashruuca aad doonaysaan in madxaf ay leedahay jabuuti lagu dhiso ma mashruuc bilowdayba mise waa mid hadda un aad doonaysaan inaad yegleeshaan? runaantii walaal mashaariic badan baa socda oo wadanka xagga dhaqanka socda oo kamid tahay maktabada oo kulli aan usoo noqon doono iyo arkaifkii wadanka. laakiin mutxafkuna runaantii waa wax dee u bilaabmay, leanna waxa weeyaan shaqadii ugu horreysay horta waxay u baahan tahay in diraasaadkii la sameeyo. diraasaadkii in badan hore baan u sameynay. wixii agabkii la dhex dhigaysna wuu socdaa. maamulkiisii waa taagan yahay oo waa magacaaban yahay. bildingii ambase maxay ahayday dhismihiina waa jira. haddeeta wixii waxaan u malaynaya in runaantii wax badan oo hadhan baa kolley jira oo iyaguna u baahan in la dhamaystiro. sid laakiinse ay u noqoto mataqaanaa mutxaf ambase museum adduunka oo caalamiya oo cilmiyeysan. kolley qaabab waxaa mootay in mataqaanaa laga wada tashado ayuu u baahan yahay. waxaan doonanasi aragti mataqaanaa cilmiyeysan oo caalamiya oo ay unesco madax ka tahay inaan shaqaa ku dhisado insha allahu tacaala. waayahay, horey laftirkeeda maktabadii qaranka ayaad u bilowdeen. waxaan filayaa weli inaanay dhammaystirneen. xaggay hadda maraysaa maktabadaas? mase jirtaa xilli aad isleedihiin waa soo gebagabaynaysaan dhismaheeda iyo inay si buuxda u shaqayso?
maktabadu runaantii walaal aada iyo aad bay shaqadeedu usocotaa meel fiicanna hadda way maraysaa gebagabo ku dhow dhul weyn bayse ku dhisiyay iyay ku fadhidaa oo 30,000 oo mitir square ah qayb waxay noqon doontaa insha allahu tacaala arkeefkii waddanka oo taariikhii waddanka oo dhan runaantii lasoo dhigi doono qaybna waxay noqon doontaa maktabad qaran oo iyadna aada u weyn maktabaha yaryar ee xaafadaha ku yaala maaha in maktabad qaran oo aada iyo aada u weyn dhismaheedu hadda in badan buu socdaa waxaan u malaynayaa insha allahu taala sanadka dhammaantiisa inuu gabagabayn doono oon ugu dambeyn insha allahu tacaala hadduu ilahay sanad guuraha soo socda ee bisha 6 2019 furitaanka rasmiga uuna ka dambeyn insha allahu tacaala waayahay jabuuti marka la eego wasiir muumin dabcan waa dal dadyow kala duwan iyo dhaqamo kala duwan ay ka jiraan marka la eego soomaalida ka sokow canfar ayaa jirta carab ayaa jirta ahmiyad intee la eg ayaad u aragtaan in dhaqamada noocan oo kale ah mid kasta oo ka mida dhaqankiisa la hirgeliyo oo maaragtay awood loo yeelo runtii waa wax alxamdulilah yani waxay arrimaha jabuuti qani ku tahay bay kamid tahay in afaf badan laga hadlo af soomaaliga af carabiga af cafariga dhaqano kala duwanna maadaama magaaladu magaalo ay xeeb ku taalla oo weligeed magaalo xeebeed ahayd haddana ku caanbaxday boorar amba dekado badan wadano badan oo jaarkana aad iyo aad ay usoo ritaan waxa weeye dhaqano badan ba ka jira runtii annagu taa adduunka bar baan kala shaqeynaa bar geeskaan kala shaqeynaa ambase gobolka barna mas-uuliyad gaar a naga saaran dee ha noqoto af soomaaliga cafariga iyo carabiga intaba mas-uuliyado gaar ayaa naga saaran xaguu ku dambeeyey dadaalkii afka soomaaliga ee jabuuti ka soo bilowday sanadkii 2012 weli kaalintii jabuuti ma muuqataa mise waad ka yara caajisteen horta runaantii dadaalkan af soomaaliga kuwii kasoo 12 kasoo bilaabeen walaal ma aha waxa weeyaan muddo badan buu weligii socday laakiin madaxweyne saamil markuu yimiday ee 1999 dardar weyn oo jabuuti waxaa markiiba ay soo la asaasay af soomaali ben oo bani hore dibadda joogaysa waa jabuuti la keenay aad bay u shaqaysaa oo insha allah waqti dheerina insha allahu tacaala shirweyneedii bay qaban doonaa wax badanna way qabatay oo ay kamid tahay mataqaanaa in la daabaco xagga buugaantana wax weyn baa laga qabtay inaad la socotay kalmooyin mar dhow shirweyne weyn baan ku qabanay jabuuti oo dad waaweyn ay kasoo qayb galaan runaantii oo buugaan badan aan ku daafurnay af soomaali ku qoran akaademiyadii malaa waxaad akaademiya goboleedkaad ujeeda waan umalanayaa markii akaademiya goboleedka ula jeeda araalaha ayaad ula jeeda iyaduna qayb bay ka tahay oo runaantii aad baan dee qaybteeda anagu uga jabuuti baa kulleyba lagu soo barbaariyey wixeedii hore lagu soo farsamadii lagu soo dhameeyey runaantii jabuutina inteeda way ka geysatay baan umalayn dowladda soomaaliya iyaduna laftarkeedu way geysatay waxaan umalaynaya dhismaheedii loo bilaabi doono oo doctor afrax baa wada waa arrin aad si fiican u socotay si fiican bay u socotay wasiirka diinta iyo dhaqanka jabuuti muumin xasan barre oo u warramaya waryaheena ridwaan xaaji cabdiweli dhegeystayaal haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa inoo haya inuuna soo diyaariya xuseen barre aadan kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka madaxweynaha maraykanka donald trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ayaa lagu wadaa in markii ugu horreysay ay 12 bishan oo ku beegan salaasadan soo socota inay ku kulmaan dalka singabuur kulankan ayaa imanaya iyada oo hore uu madaxweyne trump u sheegay in uu baajiyey haddana waxa uu ka noqday go'aankaasi markii uu aqalka cad kula kulmay ergey gaar ah oo ka socday hogaamiyaha kuuriyada waqooyi haddaba maxay tahay ujeeddada kulankan maxaase laga sugayaa waxaa arrintaasi faahfaahinaya murshid baaruud oo ka tirsan xisbiga talada haya ee jamhuuriga ee dalkan maraykanka waxaad moodaa qolyahan north korea inay ay garaysteen in madaxweynayaashii hore ka duwan yahay dantooduna ay ku jirto maadaama dhaqaal ahaan hadda aada u baabaasan yihiin hubka nuclearkana yani hanjabaadii caalamka ay ku hayeen yani runtii lasoo taabtay sirkeedii oo ogaadeen inaysan nuclear maanta aysan waxba ku qaadaynin oo haddii ay isticmaalaan hubkaas hub ka daran loo isticmaalayo jiritaankoodana uu madaxweynuhu saad ugadu hanjabay inuu ka tirtiraya caalamka marka waxay dan ugu jirtaa inay helaan yani damaanad qaad amnigooda ku saabsan iyaguna ay ka takhalusaan hubka nuclearka ah meesha taasaa keentay inay dib usoo noqdaan shirka waxa ugu fiican ee kasoo bixi kara waxa weeyaan in
waad ogtahay labada kuuriya xabad joojin baa la sameeyey laakiin ma jiro heshiis dhab ah oo dagaalkii kuuriya yani lagu heshiiyo agreement ma jiro lahad inay soo saaraan waxa la yidhaahdo agreement yani si dhaba colaada loogu joojinayo yani technically weli colaadu way ka taagan tahay labada xuduuda marka in colaada lasoo afjaro oo heshiis rasmi halkaa laga gaadho iyo inay ballanqaadyo sameeyaan ah inay hubka nuclearka ah si la caddayn karo caalamku caddayn karo oo UNT loo diro oo baaritaan lagu soo sameeyo ay ka noqdaan barnaamijkii samaynta nuclearka iyagana middaa bedelkeeda ay helaan in damaanad qaad lagu siiyo yani maamulka meesha ka jira oo aan dagaal lagu qaadin taas waa barnaamijka ugu fiican ee kasoo bixi karaa ka kale ee caadiga ah ee la dhihi karo kasoo bixi karaa haddii kaa la gaari waayo waa inay noqoto wada hadal xaajood hore oo laisku afkarto laakiin in dib laisugu soo noqdo oo wada hadalku sii dheeraaday noqon doonto laakiin shakiga meesha ku jira waxa weeye waa saad ogtihiinba in waxay iyagu ka cabsi qabaan inay ku dhacdo qaabkii loola dhaqmay Libya Muammar Gaddafi oo kale oo hubkiisii intuu dhiibay kadibna shacabkiisii lagu kiciyey oo reer galbeedku la dhaho lug bay ku lahayn arrinta taasay iyagu og yihiin marka waxay nafta keliya haystaan waa hubka nuclearka hubka nuclearkana si dhib yar oo dhaqso ah gacantooda in looga qaadaa way adag tahay iyaga laftoodana ku degdegi maayaan laakiin haddii ay arkaan waxay ku qancaan oo garanti ah oo hubaal ah waa laga yaabaa inay qaybo ka mid hubka nuclearka ah ama wakti dheeraada ay qabsadaan oo kaba suqaad lagu heshiiyo 10, 15, 20 sano gudahood oo kale kolba in laga qaado iyagoo intaa markaana wada hadalka iyaga iyo koonfurta kuuriyaba uu sii soconayo isdhexgalkooda iyo dhaqaalahooda iyo caalamkoo loo furfuraa ay sii socon doonto sida muuqata maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ayaa mid walba waxa uu dan gaara ka leeyahay kulankan iyada oo labada hogaamiye ay marar badan dhaliilo isweydaarsadeen taasi oo gaadhay in la isugu hanjabo adeegsiga hubka nukliyerka oo walaac badan ku abuuray caalamka maxay tahay haddaba danta ay labada dhinac ka leeyihiin kulankan waxaa arrintaasi faaqidaya doctor shaafici shariif maxamed oo ah madaxa xarunta diraasaadka qalam ee magaalada muqdisho sababta keenta inay kulmaan waa ay wejiyo badan tahay dhinac walibana dan gaara ayaa ugu jirta kulankan markii aan ka fiirno dhinaca maraykanka waxaa ka yaraanayo hanjabaada dhinaca nuclearka oo mar waliba ay ugu hanjabto waqooyiga kuuriya sidoo kale haddii ay maraykanka uu ku guuleysto waxa ay fariin u noqon doontaa wadamada kale ee ayagana ku haminayo inay samaystaan hubka nuclearka sidoo kale Trump waxa uu noqon doonaa ama uu ku faani doonaa inuu yahay madaxweynihii ugu horreeyay ee maraykanka guul ka gaaray arrintan waqooyiga kuuriya sidoo kale waxaa joogsan doono tijaabada gantaalada joogtada ah oo mar waliba ay sameyso waqooyiga kuuriya sidoo kale waxaa dhinaca maraykanka aan ku guda jirnaay waxa ay noqonaysaa madaxweynaha maraykanka halkudhigiisu ahaa first time ama markii ugu horreysay ee arrin uu sameeyo uu qayb ka noqon doontaa halkudhigiisii ahaa markii ugu horreysay markaan eegno dhinaca waqooyiga kuuriya danaha ama danta ugu jirta waxa ay tahay waxa ka yaraan doono cadaadiska siyaasadeed iyo cunaqabanteynta sidoo kale waxa dib u bilaaban doono ganacsigii la laheeday wadamada caalamka sidoo kale waxaa bilaabi doono heshiis toosa ama isdhexgalkii koonfurta kuuriya iyo waqooyiga kuuriya oo aan filayo hadda inuu kasoo shaqeeyey madaxweynaha waqooyiga kuuriya koonfurta kuuriya inuu dhaco kulankan waxaa kaloo dhici doono caalamka uu aaminsanaa in Kim uu yahay nin dagaal inay u arkaan inuu yahay nin nabadeed sidoo kale xayiraada socdaalka ee lagu soo rogay muwaadiniinta waqooyiga kuuriya ayaa iyagana waxa u fulaan doona inay maraykanka iyo wadamada dibadda ay aadaan so guud ahaan isku soo wadaduub labada dalba dano gaar ah iyo mid guud iyo mid gaara way ugu jirtaa warbaahinta dalalka bariga asia ayaa si weyn u falanqaynayay shir madaxeedkan la filayo inuu dalka singabuur ku dhex maro hogaamiyaasha maraykanka iyo kuuriyada waqooyi sida uu tilmaamayo cabdifataax maxamed muuse oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha bariga fog xaruntiisuna ay tahay dalka malaysia runaantii siyaabo kala duwan bay uga hadlayaan inta badan warbaahintu waxa ay qaada dhigayaan sida ay suurtagalka u tahay in labada dhinac ay ku heshiiyaan ama shirkaasi uu kasoo baxo heshiis ama go-aamo wax ku oola oo ka turjumaya arrinta guud ama bu'da arrintan la isku hayo oo labada dhinac ay isku hayaan ay ka turjumayso oo ah nuclearka ay horumarinaysay dowladda waddankan waqooyiga kuuriya iyo sida ay suurtagal u tahay in labada dhinac ay ku heshiiyaan waxa labada dhanba ka farxin kara ama ay ku qanacsan yihiin inta badan
saxaafadda ama maaragtay dadka siyaasadda falakeeya ee barigan fog degan ama maaragtay gobolkan laysku hayo oo xaaladda ay ka taagan tahay maantii waxa ay leeyihiin waxaa suurtagala in hogaamiyaha North Korea Mr. John uu maaragtay la yimaado wax ka dibacsan ama qorshe ka dibacsan qorshayaashii hore oo inta badan looga bartay. Waxaan ognahay in maaragtay kulankii hore oo labada dhinac dhex mari lahaa uu maaragtay meesha ka baxay oo kansalmay kadib markii madaxweynaha Mareykanku arrintaas uu galka ku dhuftay. Hayeese waxaa soo baxaya warar sheegaya in waqooyiga Korea ay ka bariday sida saxaafadda qaar ay sheegayaan in maaragtay kulankaas uu socdo oo dib maaragtay loo reschedule gareeyo taasoo markii aakhirkeedii uu madaxweynaha Mareykanku ogolaaday. Arrimahaas aad loo qaadaa dhigayaa waxaana leeyihiin waxaa suurtagala in aysan wax mug leh oo maaragtay taabanaya arrinta ugu weyn ee nuclearka waddanka waqooyiga Korea maaragtay aan xal saas usii badan laga gaarin sababtoo waqooyiga weli waxay ku adkeysanayaan in maaragtay barnaamijkooda nuclearka ay sii horumariyaan ay noqdaan waddan nuclear leh oo lagu tixgeliyo laakiin si maaragtay mas-uuliyadii ay ku dheehan tahay u dhaqma waxa ay saan ognahayba ay joojiyeen maaragtay tijaabooyinkii maaragtay gantaalaha ridada dheer waxa ay burburiyeen goobo badan oo maaragtay ay ku horumarin jireen barnaamijkooda maaragtay nuclearka oo ay ku tusayaan dhinaca Mareykanka iyo xulufadiisa inay daacad ka yihiin in maaragtay wadahadallo xal laga gaaro ay kasoo baxaan kulankaas ay isugu imaanayaan labada dhinac ee ka dhici doona Singapore. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ololihiisii doorashada ku ballan qaaday inuu aragti cusub la iman doono. Dadka siyaasadda faaqida ayaa tilmaamaya in tallaabadan ay qayb ka tahay aragtidiisa ku aadan siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha caalamka kuna sugan dalka boqortooyada Sacuudiga. Trump waxa uu sheegay inuu ninkan la kulmayo si aan looga barana wuxuu mar uu arrintaa ka hadlayay ninkan ayuu ammaan huuyey oo uu amaanay marka waxay taasi daliil u tahay inuu ahmiyad gooniya uu arrintan siinayo waxyaabaha ku kalifay ta koobaad waxa weeyaan arrimaha siyaasadda dibadda Mareykanka ayaaba ku qotanta in laga fogeeyo hubka nuclearka ah inuu galo gacanta waddankan Korea laakiin waxaad moodaa inuu Trump isagu arrintan ahmiyad gooni ah oo ka duwan maamuladii hore oo iyagu kula dhaqmi jiray inta badan in cunaqabatayn uu lagu hayo oo halkooda lagu ilaaliyo inuu malaha isagu doonayo inuu soo dhaweeyo oo xoogaa uu xodxoto dabeetana arrintaa habka nuclearka waddankaasi lagu tuhunsan yahay in laga dhigo laakiin dhigitaankaasi si uu geli doono ay adkaanayso sababtoo ah beri dhaweyd waxaynu maqlaynay niman ka tirsan maamulka Mareykanka oo ku hanjabay inay sidii Qadaafi oo kale ninkan looga xayuubin doono arrintaana ay ka xanaaqeen marka inta ay haystaan hubka nuclearka Kuuriyada waqooyi Mareykanka waxay ku tahay qodax ku taagan sidaa darteed markasta ahmiyad bay siinayaan arrinta labaad waxaa la odhan karaa waa mid isaga u gaar ah oo ku saabsan malaha inuu xoogaa dareemo in uu kaga yar nasto cadaadiskan iyo baaritaankan faraha badan ee Mareykanka oo malaha xoogaa indhaha dadka ka jeediyo go-aanka madaxweyne Donald Trump ee la kulanka hogaamiyaha Kuuriyada waqooyi si looga wada hadlo hubka dhigista nuclearka dalkaasi ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyada oo uu dhowaan madaxweyne Trump gabi ahaanba ka baxay heshiiskii nuclearka ee Iiraan. Haddaba maxay tahay ujeedada ka dambaysa in madaxweyne Donald Trump uu xayiraad saaro Iiraan isla markaana wada hadal la galo Kuuriyada waqooyi? waxaa sharaxaya arrintaasi Dr. Shaafici Shariif Maxamed oo ah madaxa xarunta diraasaadka qalam ee magaalada Muqdisho. waxaan ognahay Kuuriya waqooyi waxaa xiriir la leh ama ay aada ugu dhowdahay China oo ah waddan nuclear leh marka arrintan waxaa galangal aada u weyn ku leh China Mareykankana uma fududa in uu weeraro waqooyiga Kuuriya waxaan ognahay 1950 in China markii la weeraray waqooyiga Kuuriya ee gudaha usoo gashay ee la safatay labada dalna waxaa ka dhexeeyo China iyo waqooyiga Kuuriya xiriir xagga militariga ah marka sida u fududahay Iran waqooyiga Kuuriya uma fududa sidoo kale waxaan ognahay maalmahan dambe inuu socday dagaalkii ganacsiga waxaa marka filayaa inay arrintan ay tahay qayb kamid ah heshiiska ganacsiga oo China uu kula gala Mareykanka in waqooyiga Kuuriya arrintiisa la qaboojiyo sidoo kalena Mareykanka uu ganacsiga ula lahaa uu dib u bilaabo China
marka aan arrintan ugu muhiimsan waxay tahay waqooyi kuuriya waxay ka haysataa taageero buuxdo waddan nuclearla oo ku jira veto power oo ah china. israel waxay u aragtaa quwadda bariga dhexe ee hadda taagan inay tahay iran. marka waa saaxiibka koowaad ee maraykanka waa israel. marka israel mar waliba oo maraykanka uu cadaadis saaro waxa ay la safanaysaa dhinacan kale oo mar walba uu maraykanka cadaadis saaro israel maraykanka waxay u tahay guul usoo hayatay dhinacan israel. sidoo kale israel waxay rabtaa inay ugu dhawaato arrintan cadaadiska iran wadamada khaliijka ugu horeysa sacuudi carabiya iyo dubai oo haddaba aan ka hadlin arrintii qudus loogu raraayay maraykanka. marka iran israel waxay cayaareysaa game laba afla ah oo ay kusoo dhaweysanayso carabta kaga soo horjeedo iran, dhinaca kalena ay taageero kaga helayso dalkan awoodda badan ee america. dowladda maraykanka ayaa safka hore kaga jirta dalalka difaaca xuquuqda aadamaha iyo xorriyadda hadalka iyo dimuqraadiyadda. dhinaca kalena waxaa lagu dhaliilaa dowladda kuuriyada waqooyi inay ka mid tahay dowladaha aan daryeelin xuquuqda aadamaha islamarkaasina uu ka jiro nidaam keligii talis ah. waxaana la isweydiin karaa sababta ku kaliftay madaxweyne trump inuu la fadhiisto hogaamiyaha dalka kuuriyada waqooyi. waxaa arrintaasi faahfaahinaya maxamed cali biixi oo ka faallooda arrimaha caalamka kuna sugan dalka sacuudiga. marka ay timaado maslaxada sare ee maraykanka ee la xidhiidha dowladaha kale, xuquuqda aadanaha lama siiyo ahmiyadda weyn ee ay mudan tahay. waayo taariikh ahaan marka aad dib u milicsato, maraykanku waxa uu la soo dhaqmay wadamo aada ugu liita xuquuqda aadanaha marka la eego. waxa uu lasoo tacaamulay wadamo badan oo liiska madow kaga jira dhinaca xuquuqda aadanaha, oo haddaad eegto dee wadamo badan oo afrika ayaa kamid ah oo uu maraykanku taariikh ahaan xidhiidh fiican la lahaa isagoo indhaha ka qarsanaya arrinta. waxaa kale oo kamid ah wadamo badan oo carabta kamid ah oo la ogyahay inuu xidhiidh fiican la lahaa isagoo arrintaa indhaha ka qarsanaya. waxa u dambeeyey waddankan imika ay ka socoto barakacinta oo minimaal oo maamulkii u dambeeyey barack obama uu xidhiidh fiican la samaystay. marka arrintu marka ay timaado maslaxadda sare ee maraykanka xuquuqda aadanaha ee wadamada kala khuseeya inta badan miiska hoostiisa ayaa la geliyaa. sidaa darteed waxaa imika muhiimadda uu maraykanku siinayaa siiba trump in uu heshiis la gaadho wax ku ool ah oo maraykankuna u arko inay faa'iido ugu jirto. sidaa darteed xuquuqda aadanuhu waxay noqonaysaa arrinta labaad. sidaa darteed baan loo siinayn wax amniyada. arrimaha kale ee laga yaabo inuu xeerinayo madaxweynaha maraykanka donald trump ee ku kalifay inuu aqbalo inuu la kulmo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ayaa waxaa ka mid ah ilaalinta ammaanka qaranka maraykanka, sida uu xusayo doctor shaafici shariif maxamed oo ah madaxa xarunta diraasaadka qalam ee magaalada muqdisho. arrinta hadda maraykanka uu xooga saarayo ma ahan ilaa iyo heer dimuqraadiya inuu wadankan uu ku cadaadiyo. arrimo ka waaweyn ayaa meesha yaalo oo ammaankii maraykanka ayaa qalqal ku jiro. so maraykanka waxa uu taagan yahay iga jooji gantaaladan aad mar wali igu hanjabayso iyo nuclearka aad leedahay waxaan ku tijaabin doonaa maraykanka. marka hadda waxaa moodaa in aysan arrintan dimuqraadiyadda maraykanka aysan u ahayn muhiim iyo xorotulqoolka. waxay tahay badbaadada maraykanka sidii loo horumarin lahaa. ka sokow dunida inteeda kale waxaa kulankan iyo natiijada ka soo baxda si weyn isha ugu haya dalalka ku yaala bariga qaaradda asia, oo natiijada ka soo baxda shir madaxeedka kuuriyada waqooyi iyo maraykanku ay si toos ah u saameyn doonto, sida uu faaqidayo cabdifataax maxamed muuse oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha bariga fog, xaruntiisuna ay tahay maleeshiya. run ahaantii waa arrin aada u saamaysay oo saameynteeda kule baan dhihi karnaa. dhinaca waqooyiga kuuriya waxaa maaragtay xulafo la ahaa oo aan dhihi karnaa wadamada ay isugu dhow yihiin waxaa kamid ahaa shiinaha iyo raashka. intaba waa ay la kulmeen oo si maaragtay isdaba joogta ayay ula kulmeen, oo dhinacan waqooyiga kuuriya hogaamiyahooda waxa uu socdaal ku tegay wadanka shiinaha oo uu kaga dhaadhicinayay barnaamijkan iyo hadafka ay doonayaan in ay ka yeeshaan barnaamijkooda nuclearka. waa arrin waxaan odhan karnaa maaragtay murugsanaan karta, oo maadaama shiinuhuna ay isha ka eegayaan raashka oo isagana maraykanka ay maaragtay xulguf siyaasadeed ka dhexayso, ay u egtahay isaguna inaysan ku qanacsanaan doonin labada wadan haddiiba ay go-aan ay waqooyiga kuuriya ay gaaraan ay ku burburinayaan hubkooda nuclearka, ku ogolaanayaan maraykanku inuu maaragtay wadamadan bariga fog sii joogo, ciidamadiisu ay si toosa ay maaragtay u joogaan oo provocation iyo waxyaala maaragtay ay u arki karaan wadamadan bariga fog sida shiinaha oo kale ay u arki karaan arrin maaragtay dominancy ku ah
ama si kale haddaan urirahno ku keeni karta in maaragtay ay u arkaan daandaansi, sababtoo ah waxay labada dhinac hadda South Korea iyo Maraykanku ay sameeyaan maaragtay howlgallo maaragtay ay ku doonayaan inay ku muujiyaan awoodooda military. taasi waxay sii adkeynaysaa haddii ay waqooyiga ogolaadaan in ay nuclearkana ay ka tanaasulaan, burburiyaan, maaragtay si maaragtay ay u noqdaan wadan maaragtay qaada tallaabadii u qaaday madaxweynihii hore ee maaragtay wadanka Libya, ama tallaabadii uu Libyaanku ay qaadeen xilliga ay burburiyeen kantaalahooda. marka taas waxay noqon kartaa in wadamadan gobolku ay kasoo horjeeda gaar ahaan Maraykanka ama siyaasadda aan ku midaysnayn oo kula socon Maraykanka maaragtay inay u arkaan in maaragtay dhinacooda xoogaa weakness uu ka yimaado, ama ay u arkaan wax aan u cuntamin North Korea iyo xulafadeeda sida Shiinaha oo kale. hadiiba ay suurtagal noqoto in maaragtay khilaaf ama in maaragtay wadahadal waara aan labada dhinac aysan ka gaarin shirkan hadda Singapore loogu ballansan yahay, khilaafkaasi wuxuu noqon karaa mid sii daba dheeraada. waxaana oran karnaa haddii labada dhinac ay muujin waayaan in maaragtay ay isu tanaasulaan oo xal waara ay ka gaaraan khilaafkan hareeyey labada dhinac, in laga yaabo in siyaasadda qalalaasaha siyaasadeed ee gobolka ka taagan uu sii socdo, North Korea inay dib u soo celiso maaragtay gantaalaheedii, hawsheeda ay halkii kasii wado, ay maaragtay sida hadda ayaantii dhaweyd markii Maraykanku ay kansaleen barnaamijkii hore ee kulminayay labada dhinac ee maaragtay isla Singapore kulminayay. North Korea waxay ku hanjabtay inay maaragtay diyaar u tahay wax kasta iyo dagaal kasta, ayagoo sheegay weliba in xitaa haddii ay nuclear gaadho maaragtay ay diyaar u yihiin inay isticmaalaan, ayna maaragtay ayna iska caabiyaan waxay ku tilmaameen daandaansiga Maraykanka iyo South Korea ay ku wadaan. marka qalalaasuu halkiibu kasii soconayaa, arrintu waa ay sii murgaysaa, waxayna suurtagala in maaragtay sida hadda ay wax yihiin xoogaa muddooyinka u dambeeyey ay xaaladdu ahayd inay kasii dadho, in labada dhinac ay isku sii maaragtay ay isku sii xumaadaan, iyo in waqooyiga iyo Southka horna ahaantii ku heshiiyey heshiis xoogaa hordhaca taa qudheeda ay maaragtay mugdi u galo oo ay burbudho. intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo idinka imanaya laanta af soomaaliga ee VOA. tanii kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa VOA Washington. markana kusoo dhowaada barnaamijkii umuuraha islaamka. Haaruun Macruuf ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya. ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. waxaa lagu guda jiraa 10kii maalmood ee ugu dambeeyey bisha barakaysan ee ramadaan. haddaba maxay yihiin khayrka iyo wanaagga ku jira 10ka dambe ee bisha ramadaan? maxaase laga doonayaa dadka muslimiinta ah inay sameeyaan si ay uga faa'iidaystaan khayrkaasi? su'aalahaasi iyo kuwo kale waxaa inooga jawaabaya oo aqoontiisa diiniga ah inooga faa'iidaynaya sheekh axmed sheekh cumar sheekh ibraahim oo ku magac dheer sheekh axmed taajir ahna imaamka masaajidka ummatul islaam ee magaalada Minneapolis, Minnesota. Haarun, jazaaka allah khayran. 10kan maalmood Haarunow sidaan la soconno nabiga sallallahu alayhi wasallam 10ka muhiimadooda markaan su-aashaada ka jawaabo, nabigu isagoo mar walba dadaali jiray adduunka iyo sanadka oo dhan, haddana bisha ramadaan markii la gaaro dadaalka wuu sii labalaabi jiray. haddana markii 10kan ay weydiisay markii lasii gaaro 10kaasuu si gooni usii dadaali jiray. 10kaa waxaa ku jira nabiga sallallahu alayhi wasallam 10kaa wuxuu suubin jiray markii 10kaa lasoo gaaro ahalkiisa iyo reerkiisa wuu kicin jiray. qofku inuu keligii cibaadaysto lama rabo. xadiidka Bukhaari ku yaala Muslim wuxuu suubin jiray inuu ka qayb geliyo reerkiisa uu kiciyo baraarujiyo, inuu guntiga isku dhoojiyo, inuu habeenka cibaado uu ku camiro kusoo jeedo. marka 10ka dambe khayrkaas iyo wanaagaasa ku jiray, nabiguna sidaas buu uga faa'iidaysan jiray. 10kuna Haaruuno iyagaa isasii reebreebi doona ku dhowaa si kala fadli badan. waa gartay. marka waxaa ku jira habeen ka fadli badan habeenada kale. habeenkaa noo sharax
iyo fadligiisa iyo waxa lagu yaqaano? haarun waa saa u sheegtay, tobanka dambe waxay bisha inteeda kale kaga sii fadli bataan oo si gooni awoodda laysugu soo ururinaya. waxaa ku jira habeen loo yaqaano habeenka laylatulqadri. habeenka isaga ahna waxaa la sii filayaa oo aada loo malaynhayaa habeenada witriga, sida ay tilmaamay axaadiis fara badan. habeenada tirada isdheerkoo 21, 23, 25, 27, 29, habeenada witriga ayaa aada loogu sii malaynhayaa. gaar ahaan waxaa si gooni haaruun loogu sii malaynhayaa habeenka 27. habeenka isaga haaruun waa habeenka rabbi subxaanahu watacaala uu ku tilmaamaya fii suurati ina anzalnaahu. habeenkaasi waa habeen khayrun min 1000 shahrin. habeenkaasi wuxuu ka khayr badan yahay 1000 bilood oo cibaado lagu soo camiray. bimacnaa waa 83 sano oo waxaa qiyaasaa qof 15 sano ku bilaabay soonkii. 83 loogu daray almost waa 98 qof jira lifekiisa wixii camal uu soo sameeyo, salaad ama soom, zako ama quraan ama cibaada. habeenkaasoo rabbi subxaanahu watacaala uu qofka waafajiyo ayaa ka khayr badan intaasoo sana. marka habeenkaasaa witriga ku jira. habeenkan haaruun waxaa si gooni ugu sii malaynhayaa habeenka 27 loo yaqaano. habeenka 27 oo laylatulqadriga waa habeenka loo yaqaano laylatulqadri. tilmaamaheeda ama astaamahay ku soocan tahay waxaa kamid a haaruun. kow, bisha ama habeenkaasi waa habeenkii qur-aanku soo degay. ilaa waxaa habeenka sharaf u yeelaya arrimahan kale. waa habeenkii qur-aanka rabbi subxaanahu watacaala uu soo dejiyey. 2, habeenkaasi waa habeen 1000 bilood ka khayr badan oo qofkii alla waafajiyo cimrigiisa 80 sano ka badan buu kusoo darayaa. 3, habeenka wuxuu qur-aanku ka cabeerayaa laylatulmubaaraka. waa habeen barakaysan oo baraka ka dhex buuxda. 4, habeenka allah ku magacaabay salaamun hiya salaamun. waa habeen nabadgeliyo. 5, habeenka rabbi subxaanahu watacaala wuxuu tilmaamayaa tanazalu fiiha almalaa'ika. habeenka malaa'igtii samooyinkoo malaayiin iyo malaayiina ou jibriil hor kacayo ayaa habeenkaas soo degi oo kasoo qeybgeli damashaadka iyo khayrka. habeenka asaamaheeda waxaa kamid a waa tilmaamta 6, fiiha yufaraqu kullu amrin xakiimin. go-aanka habeenkiisa kale adduunkan wixii dhici lahaa, habeenka kiisa kale wixii adduunka dhici lahaa oo dhan ba habeenkaa la go-aamiyaa. 7, wuxuu rasuulku ilaahay, intaasi waa qur-aankii. xadiidka u dambeeya waa maxay? oo qodobka 7 xadiidka bukhaari ku yaala. wuxuu rasuulku leeyahay qofkii habeenka qiyaamuleyl soobeeya oo cibaado ku camira isagoo rumaysan inuu khayr fara badan loo qorayo, qofka wixii dembi ka dhacay waa loo dhaafayaa. marka haaruun habeenka isaga waa habeen qiimaha leh oo aan dareensannahay walaalaha muslimiinta inaynu la dareeno. ma jiro cimri la iibin karo. ma suurtagale qofka da-diisa cumri meel laga gadan oo dukaan yaalla ma jiro markii laga reebay habeenkan isaga. habeenkani waxaad soo gadan kartaa 80 iyo dhowr sano wixii khayr la suudinhayo oo kale ayaad habeenkaa heli kartaa. marka haaruun habeenkaasi khayrkaas uu leeyahay. waaye maxaa looga baahan yahay dadka muslimiinta ah cibaadaysanaya si ay uga faa'iidaystaan habeenkaas iyo 10 maalmood ee u dambeeya ramadaan? haaruun waxaa looga baahan yahay sida in fara badan sheegaan culimadu in isagoo nabigu mar walbaba sanadka dadaali jiray, la shaka fii dalika. haddana bisha ramadaan dadaal ka fara badan beelaha kale bixin jiray. haddana 10kan dadaal kasii badan buu bixin jiray. waxaa laga rabaa qofka muslimka maadaama uu habeenkaa la baadigoobayo, habeenkaana 10kan lagu tuhmayo, habeenkaana watriyada lagu sii jiro, in hawlihii adduunka wixii suurtagala fasax laga soo qaato, in maalintiina soo nadiifa la soomo, qur-aanka akhriskiisa la badiyo, sadaqada la badiyo, masaajidada lasoo camiro, salaadii maqrib qofkii tukada, cishihiina tukada, taraawiixina ku dara, tahajudna tukada. intaa la khayr iyo wanaag ku dhex wada, xumaantana ka fogaada, in khayrka lagu camiro oo haniimada laga faa'iideyso. sidaas haaruun looga baahan yahay. waddankana joon haaruun waa taqaanaa marka dukaamada waaweyn saylka uu jiro, xaraash ku jiro, waa artay maalin ka hor baa saf lasii galaa. maxaa yeelay shaygii 5,000 joogeen baa $1,000 lagu helayaa. waxaan u maleyn waxaa 100% kasii qiimo weyn 83 sano beec ama dhiiba lama heli karayo.
habeenkaasaa laakiin laga heli karayaa inuu qofku noloshiisa dib u habeeyo habeenka khaniimada uu raadiyo ayaa haaruun muslimiinta ayaa laga rabaa isu naxariisaan, isgacan qabtaan, isu fargodaan, cibaadada badanka iyo tii kalaba isku dhex wadaan haaruun. barnaamijkii amuuraha islaamkuna waa naga intaas. waxaan u mahad celinayaa sheekh axmed sheekh cumar sheekh ibraahim sheekh axmed taajir, imaamka masaajidka ummatul islaam ee magaalada minneabolis dalkan maraykanka. inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale, nabadgelyo. aada iyo aad ayay u mahadsan yihiin haaruun macruuf iyo sheekh axmed taajir oo fadliga 10 cisho ee u dambeeya ramadaanka nala socodsiinayay barnaamijkii amuuraha islaamka. haddaan halkaa ku dhaafna dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha. waxaa inoola diyaara nuur bukhaari. mahadsanid daandurey. 6 maalmood oo keliya ayaa inaga xigta bilaabashada ciyaaraha koobka adduunka ee ka furmaya dalkaasi ruushiya. xulalka ka qaybgalaya qaarkood ayaa weli ciyaaraya ciyaaro saaxiibtinimo oo ay isugu diyaarinayaan tartankan. xalay kulamo xiise leh ayaa dhacay. xulka Boortaqiiska 3 gool iyo eber ayuu kaga badiyey kooxda qaranka ee Algeria. Ingiriiskana 2 gool iyo eber ayay dileen Costa Rica. New Zealand ayaa 2 gool iyo gool uga badisay kooxda qaranka ee Hindiya, halka South Korea iyo Bolivia ay isku mari waayeen barbardhac goolal la'aan ah. xulka Uruguayna 3 gool iyo eber ayuu uga utroonaaday kooxda qaranka ee Uzbekistan. Ghana iyo Icelandna waxa ay ku kala baxeen barbardhac 2 gool iyo 2 gool ah. dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartooyda haddii aan eegno, kooxda Juventus ee dalka Talyaaniga ayaa si rasmi ah u iibsatay laacibka garabka bidix ee khadka dhexe uga ciyaaray xulka Brazil Douglas Costa, kaas oo sanadkii la soo dhaafay Juve si amaah ah uga ciyaarayay. Juventus waxay Costa ka bixisay 40 milyan oo euro oo ay uga iibsatay kooxda Bayern Munchen ee dalka Jarmalka oo lahayd xuquuqda laacibkani. markiisii horena Juventus si amaah ah ku siisay. Costa ayaa ah 27 jir, waxa uu hadda kooxda ka dhisan magaalada Turin ee dalka Talyaaniga uu u saxiixay heshiis 4 sano ah, waxaana uu ka mid yahay xidigaha Brazil ee ka qaybgalaya koobka adduunka. dhinaca Ingiriiskana, kooxda Liverpool ayaa qarka u saaran inay la soo wareegto weeraryahanka kooxda Lyon ee dalka Faransiiska Nabil Fekir. wadaxaajood lagu dhammaynayo heshiiska laacibkan ayaa u socda kooxaha Liverpool iyo Lyon, waxaana wararku ay sheegayaan in Liverpool ay ku iibsan doonto xidigan 24 jirka ah lacag dhan 60 milyan oo euro. Fekir ayaa ka mid ah laacibiinta u matalaysa xulka Faransiiska koobka adduunka ee dalka Ruushka ka furmaya toddobaadka soo socda. Nabil Fekir waxa uu ku dhashay dalka Faransiiska, balse waxa uu ka soo jeedaa dalka Algeria. haddii ay Liverpool ku guulaysato saxiixa laacibkan ayaa waxa uu noqonayaa laacibkii labaad ee uu macallin Klopp keeno kooxdan bishan Juun dhexdeeda, waxaana dhowaan Liverpool ay 39 milyan oo lacagta giniga sterliinka ah ku soo iibsatay laacibkii hore ee khadka dhexe uga ciyaari jiray kooxda Monaco ee dalkaasi Faransiiska Fabinho. waxaa kale oo ay bisha Juulaay ee soo aadan ay keeni doontaa ciyaaryahanka lagu magacaabo Naby Keita oo u ciyaara kooxda RB Leipzig ee dalkaasi Jarmalka. laacibkan ayay doonaysay kooxda Liverpool tan iyo sanadkii hore, waxaa hadda bisha Juulaay ka dhammaan doona heshiiska uu kula joogo kooxdaasi Leipzig, sidaas daraaddeedna si toos ah ayuu ugu biiri doonaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool. xubinta ciyaarahana dhegaystayaal waa naga intaa. waayahay aada iyo aad ayuu umahadsan yahay nuur bukhaari oo nala socodsiinayey xubintii ciyaaraha. halka aad nagala socotaana dhegaystayaal waa laanta afka soomaaliga ee v o a. bal haatan falastiin aan ka codsado inay noo marto qaar ka mida qodobadii warka ugu doorka roonaa. mahadsanid jaamac. wax yar ka hor inta uusan furmin shirka wadamada G7 ee dhinaca dhaqaalaha ku hormaray ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxau hadallo kulul ku tuuray ra'iisul wasaaraha shirkan martigelinaya ee Canada Justin Trudeau. sidoo kalena aqalka cad waxa ay sheegeen in madaxweynuhu uu ka baaqsan doono kulamada qaar. laba farrimood oo bartiisa Twitterka xalay uu soo dhigay ayuu ku cambaareeyay Trump ra'iisul wasaaraha Canada iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo uu sheegay inay canshuur dheeri ah ka qaadaan waxyaabaha Mareykanku uu dhoofiyo. Trump sidoo kale waxa uu sheegay inuu ka careysan yahay xiriirka ganacsi ee dhinaca xadka ka jira.
golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa 6 nin waxay ku soo rogeen cunaqabateyn caalami ah kadib markii lala xiriira ganacsiga tahriiminta dadka iyo ku tugrafalidda xuquuqda dadka ay ka dhoofiyaan xeebaha liibiya 6 nin ayaa kala ahaa 4 u dhashay dalka liibiya iyo 2 u dhashay dalka eritrea waxayna hormuud u yihiin burcad ka ganacsada dadka oo laga soo daabulo wadamada saxaraha afrika ka hooseeya oo dad badan oo doonaya in ay ka tilaabaan badda mediterraneanka iyagoo oo rajaynaya gelitaanka qaaradda yurub. aad iyo aad ayaad umahadsantahay falastiin dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a aanu jaleecno dhankii qasiidooyinka ramadaanka. عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران وكرروا بذكره وسلموا فالذكره يسار للأدران صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني إن المحب من صلى على النبي وآله في السر والإعلان إن المحب من صلى على النبي وآله في السر والإعلان وأن من صلى عليه واحدا صلى عليه الله بالإحسان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني qasaidkaasi naba ammaanka ah oo uu ka dhex muuqda fanaanka dalmaryarana waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenni galabnimo waxaa idinla socodsiinayay jaamac buulo jaamac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan caawa mar kale kulmi doonana nabadgelyo صليت يا نور الملا يا ليت لي ألف من اللسان كل يصلي لعلكم عليكم بل إذا أنت رحمة المنان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني مع الفاني عليك صلى الله ألف مرة وألف ألف ثم مع الفاني وعد ما في البر من خلق وما في البحر والدار وفي الجنان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني
DJ. Stay tuned for all the hits.